guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Ma og tahay in gacantaada ay ku jirto awoodda aad ku caafimaadi lahayd? Taas ayaa sax. Gacmo dhaqidda faraxalka ayaa ah midda ugu muhiimsan ee adigu qoyskaaga aad u qaban karto si ay u caafimaadaan. Maalinta oo dhan, adiga iyo qoyskaagaba waxaad faraha ku taabataan waxyaabo jeermis leh, jeermis indhaha aysan arki karin. Kadibna jeermiskan jirkaaga ay sii galaan marka farahaaga aad ku taabato indhahaaga, sankaaga ama afkaaga. Gacmo dhaqidda faraxalka ayaa ah waxa ugu wanaagsan oo aad samayn karto oo jeermiska aad uga fogeyn karto inuu jirkaaga dhex galo oo uu jirro kugu rido. Oo gacmo dhaqiddu wuxuu ka hortagayaa in jeermisku uu dadka kale ku faafo. Gacmahaaga iska dhaq marka aad musqusha isticmaasho ama ubadka marka xafaayadda aad ka beddesho. Gacmahaaga iska dhaq kadib marka qashinka aad bannaanka u qaaddo, wax nadiifiso, lacag gacanta aad ku qabato, ama xayawaan marka aad cunto siiso. Kadib gacmahaaga iska dhaq ka hor inta cunto aadan diyaarin iyo marka gacmaha aad la gasho hilib ceyriin ah ama ukunta. Gacmahaaga iska dhaq kadib marka aad qufacdo ama hindhisto ama aad kaalmayso qof xanuunsan. Oo mar kastaba gacmahaaga iska dhaq ka hor inta aadan wax cunin. Gacmaha oo si wanaagsan aad isaga dhaqda adiga iyo qoyskaagaba waxay ka ilaalinaysaa jeermiska oo caafimaadkiina ayay wax ka taraysaa. Si gacmahaaga aad isaga dhaqda, marka hore gacmaha ku qooy biyo socda. Ku dar saabuunta gacmaha oo si fiican isugu rug ilaa iyo xumbada saabuunta aad ka aragto. Saabuunta gacmaha waxay wax ka taraysaa in jeermiska ay khafiifiso oo gacmahaaga ay ka soo fujiso. Iska xaqiiji in faraha dhexdooda iyo cijiyaha agagaarkooda aad iska dhaqdo iyo meel kasta oo jeermisku isku qarin karo. Ha ilaawin inaad iska dhaqdo dhabarka dambe ee gacmahaaga iyo curcurada. Gacmahaaga oo saabuunta gacmaha wada gaartay si fiican ugu yaraan 20 ilbiriqsi iskugu rug. Waxaad samayn kartaa inaad heestii Happy Birthday ama tartiib u xisaaba 1 ilaa iyo 20. Ugu dambeyntii, saabuunta iyo jeermiska ku raacsii biyo nadiif ah oo soconaya. Gacmahaaga ku engeji shukumaanka warqadda ee la iska tuuro. Oo shukumaanka warqadda ah u isticmaal in qasabadda aad ku xirto biyaha. Gacmo dhaqistu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad samayn karto si aad u joojiso faafidda cudurrada. Inta maalintii lagu jiro, in badan gacmahaaga iska dhaq. Awoodda aad ku caafimaadi lahayd gacantaada ayay ku jirtaa. Wada jir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.